hoyaalayey hoye hoyaalayey 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 ho taageeraha jaamacaduhu waa taytalkiiyo guud. degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa maanta laga daafuray macadka Bariga Afrika Medical College oo hoostaga jaamacadda Bariga Afrika faraceeda degmada Buurtinle oo xiriir la leh in ka badan 20 jaamacadood oo bixinaya qaybaha kala duwan ee caafimaadka. xafladan lagu daafurayay macadkan waxaa ka qayb galay dhaqaatiir, nabadoono, ganacsato qurbajoog, dhalinyaro, haween iyo Dr. Cabdi Jaamac oo kamid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn deegaanada Puntland. ugu horeen gudoomiyaha macadka Bariga Afrika Medical College ana gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda degmada Buurtinle ayaa ka warbixiyay macadkan iyo koorsooyinka uu bixin doono. college caalami ah oo la jaan qaadaya caalamka. waa college aan rabno in lagu barto qaybta caafimaadka oo dhammaystiran haddii aan la idmo. macadkani wuxuu hoos yimaadaa Bariga Afrika Medical College jaamacadda Bariga Afrika waxaana xiriir la leeyahay ugu yaraan 20 jaamacadood oo adduunka daafiisa ah. macadka waxaan ugu talagalnay ardayga dhammaysta inuu toos ugu shaqo tagi karo caalamka, inuu toos ugu shaqo tagi karo Soomaaliya gaar ahaan Puntland. ardayga inta uu baranayo college-kan waxa uu practical ku samayn doonaa haddii aan la idmo isbitaalada ku yaala Buurtinle. waxa kale oo ammaan mudan ama aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Dr. Cabdi Jaamac oo Shifo Specialization Hospital gaalkacyo inuu ardayda macadkan dhammaysata uu siin doono on job training. waxaan ugu talagalay macadkan in Soomaaliya oo dhan looga yimaado. macadka waxaan u diyaarinaynaa haddii aan la idmo oo hawshiisa aan ku jirnaa qolalkii chiefka oo boardingka ahaa loo degi lahaa. dhinaca kale nabadoonada dhaqaatiirta qurbajoogta aqoonyahanka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhammaantood soo dhaweeyay macadkan lagu baranayo caafimaadka waxayna sheegeen in baahi weyn loo qabay. bulshada degmada Buurtinle waxaan leeyahay laga faa'iideysto macadka ku hadlaya afka qurbajoogta degmada Buurtinle in maaragtay ay ku soo biiraan college-kan si ay maaragtay naftooda wax ugu qabtaan dadkana wax ugu qabtaan bini'aadamka oo buka oo jiran. waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa iskaashiga dhexmaray isbitaalka Shifo Specialist Hospital iyo jaamacadda East Africa. in fact waa markii ugu horeysay oo aan dareemi doono isbedel weyn haddii uu nagu soo biiro hawsha Dr. Cabdi Jaamac iyo tiimkiisa Shifo Hospital. waxaana laga dareemi doonaa maaragtay sida uu maaragtaa gacan nooga siin doono maaragtaa xagga baraktiiska. waayo waa isbitaal aad u qalabaysan, nidaam iyo borotokoolo wanaagsan ku dhaqmaaya. waxaan si gaarana in aan jeclahay inaan ugu mahad celiyo Dr. Cabdi Jaamac oo qayb muhiima ka ah barnaamijkan xaggiisa tababarka iyo supervisionka ama inuu maamulo si guud ahaan uu maamulo. waana run oo waa dhaqaatiirta seniorka aan u sameeyay referralska ugu badan markaan joogno Buurtinle. ardayda waxaan leeyahay markaa reer Buurtinle inay fursadan u arkaan jaanis gurigooda ugu yimiday. waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa dhammaan farmashiilayda wax ka gadata ama farmashiyaashu ay uga furan yihiin magaalada Buurtinle inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oo aan horay awal loo helin. waxaan ku boorinayaa kuwa ka shaqeeya meelaha maaragtay caafimaadka sida MCH-yada iyo health post-yaasha iyo deegaanada Buurtinle oo dhan in arrintan laga faa'iideysto. waa waxbarashadii oo ku soo dhawaatay, waqtigu waa kooban yahay, dad professional ka shaqeynaya. adiga laftigaaga kalsooni bay u tahay qofkan markii la yiraahdo farmashi buu haystaa oo wuxuu ka soo baxay college-ka noocaasa. dadkii waxay u garanayaan in wax kala garanayo wax laga gadan kara inaad tahay. waa laga soo fiicnaanaya, waana laga soo ilbaxaya, waana laga soo aqoon badnaanaya. marka alxamdulillaah rabbil caalamiin Buurtinle jaamacadda iyo college-ka waa u baahan yahay. dadkuna waxa weeye qof yar iyo qof weyn, qof aan waxbarashada aysan rabin ama u baahnayn ama aan ka maqnayn ma jiro. waxaan ka tirsanahay ardayda kuleeyada caafimaadka. sababaha loo furana waxay ahayd baahi ay jaamacadda qabto ama ardayda dhigan kuleeyada caafimaadka. ardayga markuu jaamacadda iyo 10 theory ku dhigto ma shaqo gali karo 6 sano 4 sano markuu soo qalin asoo aan wax baratikaa wadan. marka waxa looga faa'iideynayaa dhammaan ardayda. waa ka practical badan yahay, waana ka aqoon badan yahay jaamacadaha la galo.
jaamacadaha practicalkooda waa yar yahay laakiin collegeka waxaa badan practicalkiisa maxaa yeelay wuxuu helayaa qofku fursado qaali ah oo macallimiin takhasus ah oo aqoontii takhasus leh waxbarashadoodii ay dhammaystiran tahay baa waxbaraya. ugu dambeyntii Dr. Cabdi Jaamac oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn gobolka Mudug ayaa sheegay in si dhow ula shaqeynaya macadkan lagu baranayo caafimaadka ardadana uu siinayo casharo practical ah. anagu waxaan diyaar u nahay magaalada Gaalkacyo isbitaaladeed ku yaala inaan kala shaqeeyo macadkan kulliyadda macnaha Medical College-ka East African Portland inaan kala shaqeyno tababarka xaggeeda iyo imtixaanada iyo heerkooda inaan standardka ay heer ay gaaraan fiican oo isbitaalada sida Mudug Regional Hospital iyo isbitaalka kaleeto Sheffield Specialist Hospital ee ex Norway ahaa magaca hore Norway loo yaqaanay hadda markii la balaariyay magaca looga bedelay oo hadda taqasusad badan oo dhaqaatiir badan ay ka shaqeyso oo ilaa ay ku dhow yihiin ilaa 15 dhakhtar ay ka shaqeyso oo isugu jira dhaqaatiir guud ee taqasusad kala duwan marka in ay tababar ay ku qaadan karaan markay soo dhameeyaan macadkan oo practical training oo ay ku siin doonto dhaqaatiirtu kula talinaya hadda engineer Abshir in qofka tayadiisa iyo aqoonta uu qaadan imtixaanada aanan si adag looga qaado oo waxbarashadiisa la ogaado iyo inuu qalmo uu yahay arintaasna waxaan aaminsanahay engineer Abshir oo ah maamulaha inuu arintaas adkeynayo. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Portland.